waxaan arkaynaa gabar lagu magacaabo aafa taas oo garoonka diyaaradaha ku sugasa saaxiibkeed jeed markii uu imaadana waxa uu arkayaa inuu la socdo aabaheed jeedna taas waa uu ka xumaanayaa waxa ayna raacayaan diyaaradii marka ay cabaar sii socdaan ayaa diyaaradii khalkhal ku imaanayaa dadkii saarnaa oo dhammina waa ay naxaya waxaan imaanayaa shaqaalayaashii diyaaradda waxa ayna u sheegayaan dadka in cilad yar ku timid diyaarad waxaana arkaa kayl oo ah saaxiibka jeed in uu diyaaradda uu ku sheegayo haddalo maalayacniya waxaana u imaanayaa shaqaalihii diyaaradda waxayna u sheegayaan in uu diyaaradda qaylada ka daayo intaas kadib waxaan arkaynaa gabar lagu magacaabo roosa ayaa waxa ay daaqada ka arkaysaa muraaxadii oo dab ka kacayo intaas kadib waxaa imaanaya shaqaalayaashii waxayna dadka u sheegayaan in ay xirtaan qalabka ogsajiinta markana waxaan arkaynaa in diyaaradii ay hoos u sii dhacdo si lama filaan ah diyaaradii ayaa bilaabasa inay burburto waxaana qarxaya mato eber orkii diyaaradda islamarkaana waxaa fuqaya qayb ka mid ah diyaaradii waxaa ka daadanaya dadkii qayb ka mid waxaana meeshii ku haraya aafa iyo jeed iyo saaxiibkiis kayl iyo xoogaadad hal mar diyaaradii waxaa ka soo duulasa biirwey waxa ayna gacanta ka dhaawacasaa kayl aad ayuuna u qaylinayaa diyaa ayina waxa ay ku dhacasaa badda iminkana waxaa dadkii soo wajahasa cabsi aad u tiro badan diyaaradiina waxaa soo gelaya biyo aad u tiro badan waxaana arkayna inay badbaadeen 6 qof oo rakaab oo ay ku jiraan aafa iyo jeed iyo saaxiibkood kayl iyo jeed aabaheed waxaa kaloo badbaaday gabar lagu magacaabo rosa iyo ayaydeednana iminkina waxa ay daaweynayeen gacantii kayl waxayna uga duubayaan maro jeed aabaheed oo lagu magacaabo aktar ayaa waxa uu leeyahay waxaan aadaya diyaaradda qaybta biyaha si uu usoo firiyo dadka nool marka uu hoos aadana waxaan arkaynaa inuu cunay libaax badeed jeedna waxa ay maqlasaa qaylo waxa ayna arkasaa aabaheed oo la cunay markana waxay wajahayaan cabsi aad u faro badan waxayna rabeen inay meeshaan ka baxaan waxa ka hortaagana waa libaax badeedkan aafa iyo jeedna waxa ay fiirinayeen kuraasta si ay u ogaadaan in ay dad weli nool yihiin jeedna isagoo saran diyaaradda qaybta boorsooyinka ayuu hal mar ku dhacayaa biyaha isagoo saaxiibadiis ka nixinaya saaxiibadiisna waxa ay moodayaan inuu la cunay laakiin waa uu soo boodayaa isagoo ka nixinayay markuu isdhaho biyaha hal mar ka soo bax ayaa si lama filaan ah waxaa ku dhegaya libaax badeedkii waxa uuna ka goosanayaa lugtii waana la soo saarayaa waana ay daaweynayaan jeedna waxa uu ahaa mid kooma ku jira waxaana arkaynaa koox badbaado ah oo diyaarad la kormaraya badda ay diyaaradda ku dhacday waxa ayna raadinayeen meesha ay ku dhacday diyaaraddu raadin badan kadib waxa ay arkayaan buburkii diyaaradda waxa ayna u dirayaan 2 nin oo ah qolada badbaadada dhanka kale roosa ayaa daaqada ka arkasa qolada badbaadada waxa ayna u qaylinaysaa ayaydeed waa ayna soo ordayaan waxa ayna imaanaya daaqadii waana aya u qaylinayaan nimankiina waxa ay soo istaagayaan daaqada iyagoo ku leh istajiya waana idin badbaadinanaa si lama filaan ah aafa ayaa ku arkasa libaax badeed ku soo socda ninkii badbaadada waxa ayna u sheegasaa inuu gadaal firiyo ilkin ma maqlayo aadiyeyna u qaylinayaan iyagoo ku leh libaax badeedka iska ilaali ilkin maadaama uu biyaha ku dhex jiro ma uu maqlayn hal mar libaax badeedkii ayaa qaadanaya waana uu cunayaa markana waa ay niyad jabeen waxayna u muuqdeen kuwa cabsanaya waxa ayna noqdeen kuwa daalay si lama filaan ah naana ayaa waxay dareemasaa in jeed uu neeftii joojiyey uuna dhintay waxayna u sheegasaa aafa in uu jeed dhintay aafana waa ay murugoonasaa markana waxa ay baddaas ku weyday aabaheed iyo jacaylkeedii waxa ayna noqotay mid niyad jabsan oo nolosha nacday markana waxa ay dejinayaan qorshihii ay diyaaradda uga bixi lahaayeen daniilo oo ahaa duuliyihii diyaaradda ayaa u sheegaya aafa inay jiraan qalab ogsajiin oo yaala diyaaradda qaybta istoorka markana waxaan dareemanaa in diyaaradii 2 qaybood u kala qaybsantay diyaaraduna waxa ay saarnayd dhagax weyn oo gunta badda yaal waxaana soo dhacasa qayb ka mid ah diyaaradii waana qaybta ay ku jireen aafa iyo saaxiibadeed aafana waxa ay isku diyaarinaysaa sidii aya ku aadi lahayd istoorka diyaaradda inkasta oo ay cabsanasay haddana waxa ay ku dhiiranaysaa inay aado waxa ayna xiranaysaa dharka dabaasha iyo leyr yar oo iftiin guduud ah bixinaya kaas oo libaax badeedka marka aad ku ifiso carayo libaax badeedku waana ay soo baxasaa intii ay soo socotay waxa ay arkasaa libaax badeed waxa ayna kaga dhuumanaysaa alabtii diyaarda waana uu iska laabanayaa libaax badeedkii waxa ayna soo qaadasaa qalabkii dabaasha waxa ayna soo galasaa diyaaradii waxa ayna isku diyaarinayaan sidii ay uga bixi lahaayeen diyaaradda islamarkaana uga badbaadi lahaayeen libaax badeedka waxa ayna xiranayaan dharkii dabsha waxa ayna isku raacayaan lablabo waxaana ugu horbaxaya aafa iyo roosa waxa ayna ku dhahayaan waxa ayna isla isticmaalayaan ogsajiinta yacni qofba mar ayuu afka gishnayay dhanka kale waxaan dareemanaa naana inay rabto inay ka harto iyaga si ay u badbaado gabdheeda waa ayna ka harsaa kaylna markii uu damco soo kaxeenana ayaa waxa uu arkayaa in ay naana meeshii joogin kadib marka uu istaho soo noqo ayaa diyaaradii ku buursamasaa waxaana harqinaya biyihii daniilona aad ayuu u cabsanayaa jeedna waxa ay ku sugasay afka diyaaradda iyagoo sii socda ayaa waxaa ka hor imaanaya libaax badeedkii jeedna waxa ay roosa ku qarinaysaa kuraastii diyaaradda iyadana waxa ay isku dhijinaysaa derbigii diyaaradda libaax badeedkuna waxa uu moodayaa in ay tahay qof mayd ah waa uuna ka tegayaa kadib waxa uu imaanayaa daniilo waxa ayna ku dhahasaa aaway kayl iyo naana waxa uuna u sheegaya in la cunay intaas kadib waxa ay ku leedahay baxa oo diyaaradda ka baxa anigana waan idinka dambaynayaaye markii ay baxaana waxaa ku imaanaya libaax badeedkii waa ayna soo
loo caraasaa intii ay dhuumanasay ayaa diyaarada qaybtii ay saarnayd ayaa dhacasaa waxa ayna ku dhacasaa gunta badda. Afana waa ay soo carasaa waana ay soo dabaalanasaa. Dhibaatada keliya oo haysatay waxa ay ahayd in aysan wadan oksijiin maadaama ay siisay Rosa waxa ayna ku miyir daboolmasaa badda. Waxa ay ku badbaaday ayaa ahayd in ay qabtay jaakada dabaasha waxa ayna dulsabaynaysaa badda isla markaana waxa uu imaanasa qoladii gurmadka iyagoo wada Rosa iyo Danilo waana ay soo badbaadinayaa. Filimkeenuna waxa uu ku dhammaanayaa halkaas. Haddii aad halkaan nala soo gaartay waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like inoo saarto janalkana subscribe dhahato. Mahadsani.